رئيس الوزراء حكومة كوميلغاركا الصومالية دكتور عبد الولي محمد علي قاص oo ay la socdeen wasiirka difaaca xukuumadda Kumeelgaarka Soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka abaadulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil ka tirsan AMISOM ayaa waxa uu maanta gaaray difaaca ugu dambeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay kaga sugan yihiin degmada Daynile ee gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku soo wareegay aagaga dagaalka oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM kula wareegeen howlgaladii ugu dambeeyay oo ay qaadeen ra'iisul wasaare gaas oo goob aan sida uga fogeen difaaca ciidamada dawladda iyo AMISOM saxaafadda kula hadlay ayaa wax warin lagu farxa ku tilmaamay howlgalada iyo dhulka ay la wareegeen farxsanay maanta inaan jiido hore aan imaado waa farxad dhulka maanta aan joogno iyo toddoba bilood sidoo bilood inta aan joogno difference u dhaxeeya aan joogno ayagana maada iska markaa saddexaad marka sida uu tagabadan iyo Abdulqaadir Shacali oo waxa weeye har iyo hameen waxay iyaga taageen waxa weeye war aan way daryeelka ciidamada marka waxa leeyahay ciidanka Soomaaliyeed u sheegaya iyo ciidanka walaalahan baan u sheegaya waxa weeye waxa leeyahay runtii madax aan wax kale ka fakaraya daryeelka iyo dabadda iyo caafimaadka ka fakaraya runtii aad ma faxsan in shakhsiyaad noocaas maanta ay hayaan talada ciidamada qabiilada Soomaaliyeed marka walaalahan aan soo sheegay waxa weeye in kastoo aan isleeyahay waxa weeye waxa u timaadeen in aad walaalada Soomaaliyeed aad taageertaan waxa weeye waa wanaagii walaalnimo Afrikaanimo inaga dhaxeeyay way waajibkii aad gudanaysaa sidoo kale wasiirka difaaca xukuumadda Kumeelgaarka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo dhalaalaan doorkooda waxaan u mahad celinaa runtii ciidamada geesiinta xoogga dalka Soomaaliyeed tunashukuru sana wa jeshi ya Somalia wale ambao wako shujaa ambao wamepigana wameliberate nchi yao iyo walaalahooda AMISOM na watu wetu AMISOM wale ambao wameweka shoulder yao waxaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ogaadaan na tunashukuru sana tunataka tufikishe Somali people yote wajue dhulkan weyn ee la qabtay inuu ku yimi dad baa u dhintay dad baa ku dhaawacmay dad baa naftooda u huray habeen iyo maalin u soo taagan una diyaar ah inay horoosi socdaan isna dhankiisa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Abdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa baaq u diray al-shabaab waxaan leenahay dhalinyarada la marin habaadiyaha iska dhaafeen muxuu ahaayeeto inay ka qaybqaataan dalkooda burburintooda nataka nimwelezee watoto wale ambao wameharibu bonga yao warudi kwa nchi yao waxaan ku soo gaadanayaa wa develop nchi yao waxa weeye annaka waxaa la yiraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Somali military defense maxaan u dhaxaynaa ummadda Soomaaliyeed na sisi tuko katikati ya Wasomali ama xukuumadda noqoto ama shacab ha noqoto kama ni government na kama ni leadership na kama ni waraya anagoo ilaalinayna qaranka ama dastuurka abaadulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in xilliga dhow ay u gudbayaan gobolada Shabeellooyinka aan dhawaan arki doonaa meelaha dadku uu higsanayo ayadoo la joogo laakiin waa maalin heble mali waayo cadawga bay iga diyaar garoobaan laakiin maalin dhow waxaan rajaynaynaa inaad ku farxi doontaan meel webi leh inaan biyo ka wada cabi doono mas'uuliyiinta ka socda xukuumadda Kumeelgaarka Soomaaliya ayaa ciidamada AMISOM goobaha ay maanta saxaafadda geeyeen waxay ahayd goob ku dhow garoonka diyuuradaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir walina wuxuu garoonku ka mid yahay goobaha ka maqan gacanta dawladda xarunta degmada Daynile xaafadaha Bangala iyo Tiida isbitaalka Daynile dhammaantood waxa ku sugan dawladda Kumeelgaarka Soomaaliya iyo AMISOM